inta aadan daawanin muuqaalkan waxaan kaa rajaynayaa inaad nagu soo biirto like saarto muuqaalka share aad dhahdo si uu arday badan u gaaro fiidiyogan mahadsanid subscribe noo saar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ardayda ku jirto meeshaan ama ku xiran youtube channelkan hejleynin isku soo naqd wanaagsan marka waxaan idin rajaynayaa inaad maantiin caafimaad qabtiin maanta waxaan idin wadaa muuqaal cusub oo ku saabsan sida online loogu shaqaysto jobska rumi oo saxda ah waanan fake ahayn oo ugu saxsan online laga shaqaysta insha Allah idinku soo bandhigi doona muuqaalkan marka website-kan had ku dhex jiro website-yada kamid ah haddaad taqaano luqadda ingiriiska aad ka shaqaysan karto magaciisana waxaa la ref bis shaqada laga qabaa waxaa waaye ingiriiska haddaad taqaano oo wax fasiri taqaano okay waaye waa ka shaqaysan kartaa adoo saacadii ku shaqeynayo $15 $20 $30 $40 ilaa $80 saacadii oo kaliya marka maalintii meeqa ka shaqaystaa 200 ilaa 500 waxaas waaye marka lacag badan waaye marka magaciisana waxaa la ref waxaa waaye waxaa macaamiil u ah 170,000 waa qof macaamiil u ah 70,000 waxaa waaye shaqaalaha waa website macnaha oo lagu kala turjumo luqadaha هذا مركز القدرة التقنية الظاهرة يسا كديمنا هو ترجمة ترجمات الأومد واي ترانسليتر ترانسكريبشن مركز كم حاول ترانسكريبشن ترانسليتر لو واي هاي عادي قراءة الرؤوس وقراءة وترجمة أما مقالة أو كلا حيات أو كوان عنك أي يوتيوبر اللي هنا كلا هذا خلا لقط كلا هاوس وصقر ساسو كلا مركز ساسو كلا واي أديك لكن إديت كاس واحد فراغ فاي واحد فراغ وين shaqo kulid marka adiga waxa qabanaysaa oo kaliya waxa lagu saaraa kale AUD1 AUD2 AUD sasa lagu saaraa macnaha codka koowaad codka labaad wuxuu ku hadlaa codada lagu kala saaraa codka koowaad marka waxa laga dhigaa hal qof codkiisa qof kala hadlaa camal codka laga dhigaa marka aad hortiisa waxa ku qoray wuxuu ku hadlaa luqadda doorataa ku qoray macnaha saas waaye qaabku u shaqeeyo marka saacadiina waxa ku shaqeeyaysaa macnaha video walba wuxuu دقدو كومي هاي منتكي waxaa ku qaadanaysaa 7,000 marka saacadii marka tii lagu dhufto waa $44 waxa soo saacada laga dhigo halkii minada waxa ku shaqeeyay 7,000 oo fiidiyowga socodka codad lagu dhageysiyaa waa qoray fiidiyow lagu dhageysiyaa waa qoray saas waay marka waa hadda waa ujeedaa muuqaalkaas hadda computerka muuqaalka shidan qafahloy qoraal dul saaran journalist is the first saas oo kale ugu soo qoray laakiin adigu ma qoraysid هذا بس waxaa lagu siihaa qaybo qoran tahay uudii macnaha codka koowaad codka labaad ninkaas camal codkiisa oo dhan waxa laga dhigaa hal cod hortiisa bisa ku qoray wuxuu sheegay luqadda dooratay marka hadda qaabkaas u shaqeeyaa 99 waxa accurate captions waay iyo transcription subtitles waay marka dada way soo raadinayaan waxay fiidiyoo soo dirsanayaan Allah muuqaalkaas ay kali sida uu falxo kale muuqaaladiisa badankood waxa waxay ku tarjumayeen luqad ingiriis saas waay marka hadda saa horeen ku sheegay website-kan waxa aamintay oo customers ah oo ka adeegto 170,000 oo qof iyo 70,000 oo macnaha shaqaalo ah shaqaalaha kamid ah iyo shaqaalaha caadi xafiisyada u fadhiyo qaabkaas waay transcription kan kaligiisana kama jiro website-yada transcriptionska iyo translatorska kan bis kama jiro kuwa badan waa jiraan ref waa jiraan waxa kale oo jiro mid transcribe me la dhaho waa buuxan marka kan wuxuu xaliyaa waxyaabaha codadka la fahmi waayo kale uu xaliyaa by human oo macnaha dada loo dira waxaas dadkay way kala heersanayaan dadkaas adii lacag badan ay ku qaadanayaan codadka la fahmi hadda ninkan wuxuu cuno karista camal wuxuu ka hadlaa afkiisa ku hadlaa af ingiriis lagu soo qoraa meeshaas adii laakiin shaqadaas ma qabanis macnaha هذه بس قرار كاس سو قرتي قفا قادنا ودي تكرين اساس uu sawira meesha uu habeeyaa waa fahantay hada midaan waatana speaker 1 speaker 2 speaker 3 speaker 2 hadana saas oo kale naagtan codkeedu waxa laga dhigaa kulli speaker 1 marka waxa sheegay soo dhan meeshaas ku qoray waxa ku qoray speaker 1 hoosteeda qof kale aan lagu soo saaraa ama cod kale oo ka duwan hadii loo qashiyo kale speaker 2 codka galay oo hal fiidiyo camal hadeeyeen هذا لا قف وكلا فيديو إساس الضبطي قف كان عضولي قف كان كل عضولي قف كوات عدكيسة وعلى قاعدة سبيكر 1 قف كان عدكيسة وعلى قاعدة سبيكر 2 مركل لو عد ما لاص ما يشكل قري
meeshaan waxaa ujeedaa subtitles allow you to reach a new audience across the globe. Qaabkaas waa marka codka saasa lagu dhegeysaya waa lagu daraa marka adoo qoraysa oo kale. Baalkan waa fursad oo qaali ah oo ka faa'iideysan karaan dhalinta Soomaaliyeed ana oo dhahay shaqo la'aan ah meelaha joognaa Ingiriis bisa dad qaanid imtixaan yar ay ku marsiinayaan imtixaankaas hadda fiidiyoon waa ujeedaa naftirkiisa this will affect a big combat si fiican loogu jeedo around the world saas uu leeyahay marka wixii ku hadlaysa uu qoraa bis qofka intaas leewaay midkaan kala hadda ujeediin the most accurate speech to text address in the world ujeediin marka waa ujeediin dad Chinese luqad walba lagu tarjumaa dadka macnaha qaabka u yaalaan waa kuwana macnaha waxaa laga wadaa bulshooyinka kala duwan oo loo tarjumi karo muuqaalka hadda Soomaali xataa tahay oo balaayad tahay xaan tahay oo kale luqadaada waxaa lagu tarjumaa carabiga muuqaalka lagu hoos qoraa waa lagu habeeyaa version ugu dambeeya waa noocaan 2022 waay marka hadda rabtid inaad bilaawid qaabka u bilaabay waxaa ku dhufanaysaa oo kaliya get started oo kaliya oo surface oo ku soo saaraa tani hadda meesha waxaa ujeedaa human transcription macnaha website-ka dadka markay soo galaan oo kale in muuqaal loo tarjumo la rabo qaf rumey ma lagu dhigaa masarbooda leey marka human hadduu doqdo waxaa lagu qaadaa muuqaalkaas 150 lagu qaadaa minute-kii marka hadda xisaabino 150 meeqa waa bar minute 150 hadii lagu qaato 60 minute oo kale meeqa noqonay haddaad ku dhufano 150 60 hadda ku dhufano muuqaalka ka yar ma jiro intaas marka 90 waa $90 hal mar laga dilaa qofkaas marka 60 intaas lacag badan waa dad badan 170,000 macalimiin oo yihiin marka automatic transcription waxa waa asina waxa lagu qaataa eber dhibic 25 per month boqolkiiba 90 waxa waa plus accuracy waa English captions waxa waaye asina 25 si wax waaye per minute global subtitles waxa waaye $3 ilaa $7 per minute waa asina $20 waxa waaye per user macna live-ka markii la soo galay balkan live u dhaxaysa leeyahay dad kala qoomiyad duwan asla soo galaayo marka si loo kala tarjumo halka qof waxa laga qaadaa $20 marka hadee isku jiraan 20 qof oo kale 20 ku dhufo waa lacag badan ma sha Allah waay marka waa website dadka fursad muhiim ah ay ku guriga joogaan ka shaqeysan karaan adii meel kale maaysid marka hay'adaha amino waxaan marka ujeediin dad waxay fursad u tahay adoo guriga jooga iska shaqeysanay maalintii 500 200 iska shaqeysay marka waa wax iska fudud waaye aanan dhib ahayn marka qaabkaas ay diiwaan gali kartaa daarti inaad ka shaqeysatid insha Allah isla socod wanaagsan hadda rabto inaad iska diiwaan galiso oo kaliya hoos soo degaysaa kadib waxa ku dhufaysaa become a freelancer marka wuxuu ku leeyahay freelance job lets you work from anywhere meel kasta joogtid waa ugu shaqeysan kartaa ku leeyahay meel kasta joogto waa ugu shaqeysan kartaa ku leeyahay kana get paid weekly fiidiyooga saan camal lagu soo bandhigaa adi marka wax lagu siihay waxa waa halkii minute oo fiidiyo ahaado ma socdo ahaado halkii minute 30 sita ku leeyahay ilaa $1.10 $1.10 ilaa 30 sita ku leeyahay hadday tahayna captioner waxaa ka badan tahay oo waxaa ku leedahay cod ama video mid kor ahaado halka cod ama salkii video eber dhinac ka 4 ilaa $1.10 macnaha captionerka waa ka fudud yahay kan kale transcription-ka adag intaas cod in lagu soo saaro laga yaabaa dhag waa ka wada shaqeeyay marka shaqada aad waxa raadaysi ma shaqada hore ka soo galay macnaha maalintii kisa lagu soo galaa meesha maalintii bigisa lagu soo galaa imtixaanka ka gudubtida ku qaataan shaqaalooda kamid tahay marka maalintii waajib waa inaad wax heshid waajib waay marka qaabkaas u shaqeeya marka hadda iska diiwaan galiskaas iyo wadayna insha Allah marka horta Soomaaliya question-keeda ma galo laakiin waa ka shaqeysan kartaa oo joogtid waxa isticmaalaysaa kaliya Turbo VPN mise midka kuwa kale isticmaalaysaa hadda laakiin telefoon looma ogolo waxa loo ogolyahay kaliya midka waxa ahaay mobile iPhone xataa looma ogolo Apple looma ogolo waxa loo ogolyahay laptop waa loo ogolyahay mise computer mid haddaysid labadooda waa loo ogolyahay marka labadooda haddaysid waxa isticmaalaysaa VPN nooca rabtid Turbo jiro noocyo badan jiro kaarta isticmaal kartaa marka waa iska fudud yahay waa soo furanaysaa oo kaliya VPN ka isticmaalaysid kadibna hora ka galaysaa
marka iska diiwaangeliska sii wadan insha Allah. markaa kusoo dhufato get freelancer uu ka diida locationkaada ma ku shaqeynayno dhaha marka waxaad isticmaalaysaa VPN nooc rabo ahaado mideeda kale website-kan kuma shaqeeyahay mobile caadi iyo iPhone iyo iPad saddexdooda kuma shaqeeyahay marka wuxuu ku shaqeeyahay computer mase laptop marka get freelancer kusoo dhufato marka formkan uu kusoo saaraa first name last name email choose one waxaas uu kusoo qoray select countryga Soomaaliya dooranaysaa choose one waxaad dooranaysaa transcription ka dooranaysaa emailkaadana waa gelinaysaa meesha first name magacaada caadiga gelinaysaa last name magacaada bahada gelinaysaa kadibna next yaa leedahay gmailkaaga waxay kugu soo dirayaan message oo activation markaas 2 daqiiqo inaad ku gaarsiisaa lagaaga baahan yahay hore ka geliso isla markii uu dhaca macnaha markaa ku dhufato si toos markaa ku aqbala waa la kacsho kuraa marka qaabkaas iskaga diiwaan gelinaysaa sidaas fudeedka ah marka iska diiwaan gelis marka imtixaanka intee ka helaysaa amse u galaysaa insha Allah inta horta waa kana imtixaanka ay ku weydiinayaan marka qaybaha imtixaanka ka soo dooranaysaa exam igala leedahay hore igala imtixaanka waa ka soo dooranaysaa marka qaybaha imtixaanka waa kaasaa ka horta labada ugu horeysa imtixaankaaga ma imtixaan waxa rabtaa geli kartaa backgroundkaada leewaay kan ka sii horena introduction waa hor dhac leewaay marka meelaha ugu adag waxa waaye skill assessment iyo grammar and style iyo transcription simple saddexdaas ugu adag marka saddexdaas ka soo gudubto bis waaye marka imtixaanka backgroundkiisa waa kana waxaana la weydiiyaa high school ma tahay mise bachelor waxa ku weydiinayaan shaqada maxaa leedahay khibrad no work experience dadada waay marka in dhaqsi ku qaadan laga yaabo 5 sano wax ka badan khibrad u leeyahay wax loo qoraa backgroundkaada waa macnaha waxyaabaha kugu qaadanayaan waaye backgroundka hadda loo bago waa background naftirkiisa waa wax oo loo baahan yahay iska dhistid marka healthcare waxa sadeebto kulli waa doqon laakiin waa laga cancel karaa waa wax halis ah marka taxadarkaaga ka bato meesha si dhaqso lagu qaato markaas skill assessment waa wax meelaha ugu adag waa saddexdaas ugu adag saddexdaas ka gudubtid bis ay meel fiican aad tagtay marka insha Allah shaqo fiican ay rajeynaa marka website badan oo asal lamid ah waa jiraan insha Allah muuqaal wax ka soo diyaari doonaa muuqaalo badan asal lamid ah waa jiraan oo laga shaqeysto oo Ingiriis lagu shaqeysto Ingiriis dad qaanid ka shaqeysan kartid marka ardayda meesha ku jirto waxa kale oo idin ogeysiin rabaa in website-keena wax badan ku soo darnay ka faa'iideysan kartaan koorsooyin badan ku soo darnay marka waxa ka booqan kartaa video description-kiisa website-kana linkigiisa waxa ka helaysaa videogan website-keena soo dhaxgalay website-ka ku dhufanaysaa marka website-ka toos meesha waxa dul tagaysaa ku qoran tahay links kan ugu sareeyo waaye marka insha Allah kaas waa ku dhufo ma ogola macnaha in meeshan laga soo galsho marka insha Allah website-ka ka soo galshay meeshaas kaga soo dhufta waa website-ka ka shaqeysan kartiin ka faa'iideysan kartiin maanta muuqaalkeena intaanu ku eegyahay hadda videoga ka like noo saar channelka inaad ku cusubtaa subscribe noo saar noo share gareena muuqaalkan si asxaab badan u gaaro oo arday badan u gaarto wax ka faa'iidaan commentigeena waa inoo muhiim si aan u ogaano wax loo baahan yahay iyo waxyaabaha loo baahan yahay marka aan ogaano insha Allah commentigeena inoo muhiim ma sanid sawdad muuqaalka